السلام الله عليكم أصحابتي ما أنت waxaan tagi doonaa dhankaas iyo waliba Malaysia xaaladda walaasheen Amiir Qurux oo arrinkeeda uu YouTube ka yaalay labadii maalmood u dambeeyay ayaan maantay qodobo ka soo laabtay iyo doodo ka soo laabtay oo shacabka ay ka soo celiyeen baan intii aniga fikradeeda ku biirin doona hadii aad nagu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigeena fikirkaaga nagu leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka maalimadii shalay ahayd inkastoo maalmihii ka horeeyay xataa dhowr jeer ay asxaabta dhaheen warbaahin arrinkaas fikradaada ku biiri haddana maalimadii shalay ahayd muuqaalkii aan soo dhigay ayaa mid kamid ah saraakiisha wuxuu qoraalkiisa ku soo bandhigay in fikradda ah arrinka walaasheen Amiir Qurux aan ku biiriyo fikradeeda qoraalkii waa bingareeyay kadibna waxaan ka dhigay pool ama in haday saraakiishu ku raacsan yihiin aan arrinkaas bal fikirkayga ku biirin doono saraakiishu waa kala baxeen qaar waxay dhaheen waa arrin family wasiir gabka dheh barnaamij kale noo soo diyaari qaarna waxay dhaheen wasiir arrintaas waa muhiim ka soo hadal likes commentigii idilay ama dhaawacay wuxuu ahaa commentigan gabadha walaashay ay soo qortay oo ay tiri wasiirku raggu taageeraa arrimaha dumarka kama soo hadlo oo ma baahna inuu ka hadlo dabcan walaasheedii saas inaa dhahdo ma ahayn waa saraakiisha rag iyo dumarba meesha waa loo siman yahay waa idin wada jeclahay dumarka waa iyo raggaba meeshan ku jiraba iyaga un baan wax ku ahay commentigaas aad buu i xanuujiyey waxaan dareemay dumarka qaar inay si u dareensan yihiin inaan xagga ragga u janjeero laas waxaas waa wixii iska kaftanayo commentiga laas arrintu waaqiiciga saxda marka ay joogto dumarka waa kaalinta koowaad madaxay noo saarayeen waana dhaqanka Soomaaliyeed ee dhaqanka lagu soo barbaariyay waayahay sidoo kale saraakiishu waxay soo qoreen wasiir waa arrin family ha gelin sidaas darteed annagoo arrinka family-ga iyo wiilkay gabadh u dhaxaysa aan gelin arrintii dumarka ee fikradda ahayd inaan ragga arrimahooda u badanahayna aan ka qancinayno baan meel dhexbaan oo barnaamijka muhiim ah in laga hadlo baan ka hadli doonaa taasoo ah gabadhu markay muuqaaladeeda soo dhigtay dhanka TikTok iyo dhanka YouTube ka labadaba oo TikTok intii qayb la jirtaa la geeyay YouTube keedina iyada kaga falcelisay ku dhawaad 15,000 miya mise 14,000 oo commenti baa laga bixiyay doodaha ka soo laabtay doodahaasaan maanta marka su'aalihii dib shacabka ka soo laabtay ba inta fikradeeda aan u arko kaga jawaabi doona anigoo markaas ka qancinaya shacabka inta saraakiisha kamid ah ee su'aalahaas oo kala qaba ashkuwaad waxay ahayd ee aad kul isku weydiinayay in Amiir Qurux gabadha la dhaho afnaan oo barnaamij sidan oo kale ayadana sameysay inkastoo barnaamijkaas aan ka soo hadlin maxaa yeelay barnaamijkaas wali waa socdaa waa continuous wuxuu markuu dhamaado fikirka dhiban kartaa in gabadhaas ay markay aragtay in muuqaalada noocaas oo u qarxay ee ayadana barnaamijkii safka dhinac ka soo gashay oo ay views ku raadinayso aniga xataa markii ugu horreysay muuqaalkaas aan arkay maybe inay fikradda noocaas kale igu soo dhacday laakiin muuqaalkeedii u dambeeyay markii aan daawaday baan arrinkaas ka qancay fikradeedan oo ku biiranaya inta saraakiisha arrinkaas waa kaga qancinaya jawaabta marka su'aasha loo heli karaa waxay tahay in gabadhan haddii views ay raadinayso ma aysan dhahdeen ereygan inaad dhegeystiina rajayna videogan wuxuu noqon doonaa videoga ugu dambeeyay ugu horeeyay inaan ka hadlo hal mar aan ka hadlaa waxaan rajaynaa inaad fahantiin idana maaragta hal ii dhegeysto please in ay dhahdaa waa muuqaalkii ugu dambeeyay arrinkan aan kaga hadlayo dad means waxay ka dhigan tahay gabadha tan wadadii ee gabadhii hore ee shortigeeda ama ay kaga sheekeysay nolosheeda dhanka social media inaysan damacsaneen wadadaas inay raacdo oo ay tiri muuqaalkan waa kii ugu dambeeyay dhariga karkarka maxaa ka keena kuleelka haday ku moosan kartaa isku moojaa hadii been laga sheego in ay isdaahiriso dhaqid ku qasban tahay wixii waaqiciga jira ka hadashay markii ay tiri erigaas waxa ay ka dhigan tahay in gabadha tan aysan rabin inay history wixii ka dhigto qaybta koobaad qaybta labaad qaybta 14aad qaybta 18aad inay ka dhigto inaysan rabin ee arrinkani ay bulshadii wixii khaladka laga fahansiiyay ay ka qancinayso maadaama codad ayada ay leedahay la soo baahiyay ay jawaabteeda ahayd su'aasha labaad meesha la isku weydiinay waxay ahayd maxaa ku soo beegay waqtigan arrinkan inaad dib u soo faarfaartid iyadoo arrin kale oo gabar afnaan la dhaho oo social media hayaal oo xataa gabar kale oo TikTok ka hadlaysaan arkay iyadoo arrimaha kan ay taagiin maxaa arrinka ku soo aadiyay hadaadan views ku raadineen taasna waxaan kaga qancin karnaa ama kaga jawaabi karnaa waxay tahay in
iyada markeedii hore dhalashadii ay wiilkan u dhigaysay haddaad muuqaaladeeda ku taxan tihiin ay ka hadashay in wiilkeeda uu halsana jirsaday. dabcan markaa hami leedahay oo hami aa gaartidna waxaad dib u xasuusanaysaa juhdigii iyo dadaalkii dheeraa ee waqtigii aad adiga hamigaaga aad ka dhaweynaysay aad soo martay. marka waxay dib u yara taabatay in sanadkaas ahaa sanad xanuun badan, in sanadkaas ahaa caamil xusni oo kale oga dhignaa ama sanad murugadiisa iyo kuleelkiisa wata. arrinkii dhalashada marka ay arrinkaa sharaxday waa waxaa soo baxday in dhankii kale ay falcelin ka timaado. falcelintaasna iyaduna dadkii bay ka qancisay oo ay tiri war sidaa wax u jirta, sidaa moodeen wax uma jiraane, wax walba waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa. marka arrinka dhalashada wiilka arrinkan keenay maaha xaaladii kale youtube-ka iyo barnaamijyada ka socday arrinkan kuma tacalluqo ee waqtiga un baa kulmiyey. su-aasha saddexaad ee laakiin aniga aan jawaab u hayn marka waxay tahay, Soomaalidu waxay dhahdaa haddii mid qof kuu yimaado dakhran oo la soo dhibaateeyay go-aan ha gaarin. waxaa laga yaabaa kii kale ee labada qof isdagaalayeen kii kale kan kaa maqanin inay caloosha dooxan tahay ama meed uu yahay baa laga yaabaa. marka of course dadkii gartaa soo bandhigay waa sax. annaga hal dhinac baa hadda codkeeda aan maqalnay, wiilka dhanka codkiisa ma maqlin. in aan dhex galo labadoodana ma rabo, laakiinse taas hal mid baan aniga kaga qanci karaayo ah gabadha tani qaab inay isdifaacayso umaysan hadlayn markay hadlaysay. waayo ereyga ilaa hadda maskaxdeeda ka go-ilaaba waxay tahay kala idin sheego markaasaas aa dhahay waxay dhahay you can't live without me ani laanta minu like because asigu ogaay ani laantiis waqtigaaseti yani qof waxa ahay oo maaragtay oo isku maleyn inay wax qabsan karto laakiin had qofka had ahay qofkaas ma ahaan jirin ma fahanteen taas been ma ahanbo laantiis ani markaas wax ma qabsan jirin. gabadha tani haddii isdifaacida ku jirto oo ninkaas inay dadka dhinaciisa xun tusto ama ay xumaato asaga dul saarto ay isku dayeyso jawaabta noocaana ma aysan bixin lahayn. waxay tiri waa run waqtigaas aniga waxaan aaminsanaa inaan waxba qabsan karin asaga la-aantiis. waxay kuu cadeynaysaa hadday difaac ku jiri lahayd gabadha tani waxay dhihi lahayd aniga adaa isagaa iska dhaadhiciyay inaan la-aantiis wax qabsan karine weligay allihii aniga qof wax qabsada oo adag oo strong baan ahaa, laakiinse khaladku iska dhaadhiciya ahaa inaan waxba qabsan karin. qaabkaas u hadli lahayd waa isdifaaci lahayd. gabadha tani laakiinse inay qalbigeedu saliim yahay oo wax isdifaacida aysan ku jirin oo ay leedahay waa run waqtigaas isaga ah aniga waxaan aaminsanaa inaan la-aantiis waxba qabsan karin oo qof bili-aadana isi siiyey baan ahaa. qaabkaas qalbi xaarnaanta leh oo ilaa iyo haddeer libintiisa u ogashahay umaysan hadli lahayn. marka waxaan dhihi karnaa in qanaacadaas aan kaga qanacno gabadha tani maadaama kii kale uu aamusan yahay dhinacii kale wax wara kama hayno, laas gabadhan maadaama qaabka laab xaarnaanta ay u hadlayso oo lilaahi ay tahay mideeda kale ay dhaaratayba oo magac ilaahay ay ku dhaaratay dee qofkii dhaartaa qofkii aamin waayaa ka xun. barnaamijkaas waxaan garab taaganahay 100% walaashin amiirada dhalinyarada youtube barada ah ee youtube-keena ka xamaasho ixtiraam gooniya baan u haynaa. magac amiirad bay wadataa, laakiinse waqti adag ay soo martay ama waqtigii noloshaas adag ay ku jirtay magaca ay wadato miisaanku uu leeyahay meesha sare uu joogo iyo iyada nolosha ay soo martay sidii dhaawaca ay u ahayd oo meel hoose u ahayd xataa magaceedii iyada shakhsiyadeeda kala miisaan weynaa sanadkii ay ka sheekaysay. marka waxaan leeyahay gabadha walaashin amiir qurux waxaan leeyahay noloshaada ilaahay meesha hadda aad rabtid meel ka sarreysa ku geeyo, nasiib baa leedahay. gabadhi walaasha ahayd iyo wiilkii dumaashiga ahaa iyo adigu at least family baad ku haysatay meesha arrintaas ay kugu qabsatay. waxaa jiro oo bil xaqiiqa ah reer Malaysia ay ka warhayaan in gabdho jaamacada loo soo diray medicine waxbarashadii u sarreysay ee familkooda u soo direen in intii rag Soomaaliyeed gabdhihii dhagta wax loogu sheegay oo nolol mustaqbal iyo qurux badan loo sawiray in hadhowna markay ilmo caloosha ay ku qaadeen loo gambiyay oo haddeer xirooyinka UN-ka Malaysia ay ka dhiban yihiin. waxaa xaqiiq ah in dumar qaar ay xataa aadeen dhankaasi Indonesia. reer Indonesia hadda taqaanaan waraysta dhalinyaro gabdho badan oo jaamacad markii hore mustaqbal raadisayo Malaysia jaamacad u yimid inay diyaariyaan oo haddeer xirooyin iyo wadanka Tunisia u qaxay baa jira oo mar bal raadinaya markab qaada ama barnaamij yar oo dhag iyo Australia ku galaan. noloshoodu wax kala dhantaale xaalado noocan oo kala bay ahaayeen. barnaamijkii aan kaga hadlay walaashii amiir qurux anagoo dhanka family-ga aan gacanta darsan gabdhihii Soomaaliyeed
dareemay inuu wasiirka dhanka rag u badan yahayna ka shaafinayo barnaamijka gabadha walaasheen aan ku garab istaagayno aan fikirkeyga ku kordhinayo intaasaan kusoo gabagabeynaya haddii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigina fikirkaaga nagula wadaagsa intaan kulmi doono barnaamijka lamid ah wasiirka arrimaha gudaha ismaamulka Soomaaliya social media leh joog